ayadoo caweysikii xalay u lahayd markii digreeta ka soo baxday xarunta qasiga madaxtooyada Somaliland kuna saxna agaasimaha warbaahinta u qaabilsan madaxtooyada ana kusimaha fayeenka Naasir Yuusuf Daahir madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo isku shaandhayn ku sameeyay xubna ka tirsan golihiisa wasiirada qayb ka tirsan agaasimayaasha wasaaradaha dalka iyo sidoo kale madaxda ugu sareysa hay'adaha dawliga ee hoos timaada xukuumaddiisa si weyn u saameysay wasaaradaha madaxtooyada maaliyadda qorsheynta qaranka arrimaha dibadda boosaha iyo isgaarsiinta warshadaha iyo sidoo kale wasaaradda duulista iyo hawada aragtiyo kala duwan shacbiga reer Somaliland ka dhiibteen ayaa wax dhanka kale noo suura gashay in dhankooda aragtiyaan aan wax ka weydiino xubnihii digreetadaasi saameynta ku yeelatay isla markaana xilalkoodii laga bedelay xilal cusubna loo magacaabay Kaysar Cabdilaahi Maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta xilligana loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa noo suura gashay in xafiiskiisa aanu ku booqano si aan wax ka weydiino digreetada iyo sida aragtiyaan la muuqato waxaanu si mugii miisaan lagu soo dhaweeyay isaguna madaxweynaha ugu mahad celiyay magacaabidda markii afaad xil wasaaradeed uu magacaabay aad iyo aad baan marka koowaad ugu mahadnaqayaa Ilaahay mar labaad ka madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland madaxweyne Axmed Maxamed Silaanyo oo runtii markii afraad digreeta madaxweynaha ugu magacaabay anagu runtii waxaan nahay gacan yarayaasha madaxweynaha marka meel kasta oo naloo diray inaan ka shaqeyno waan ka shaqeynaa diyaarna waanu nahay waan ka soo dhalaalaynaa shakhsiyan runtii wasaaradda arrimaha dibadda hore baan uga shaqeeyay waxaan ahaa ambassador at large imikana waxaan insha Allah rajeynaya inaan si weyn muxuu ahaayay hawsha u gudan doono waxaan runtii rajeynayaa saaxiibadayda wasaaradda arrimaha dibadda ka shaqeeya ugu horeeyaan dinjiriyaasheena jooga wadamada kala duwan iyo muxuu ahaayay mas'uuliyiinta wasiirka wasaaradda wasiiru dawlaha dhammaan oo aan wada garanayno soo wada shaqeynay inaan si ballaaran wada shaqeyn doono qarankana muxuu ahaayay himilada uu higsanayo yoolka uu higsanayo ah in qaranka Soomaaliland noqdo qaran madax bannaan la aqoonsan yahay horumarsan in yoolkaas aan ka wada shaqeyn doono gaw ah bay tahay muddada aan wasaaradda qorsheynta joogay ilaahay mahadi wax badan baa noo hirgalay waxaa noo dhamaystirmay qorshihii qaranka NDP2 oo dhawaan madaxweynuhu saxiix doono oo si fiican ugu dhamaystirmay waxaan u mahadnaqayaa wasiirka wasiiru dawlaha wasaaradda qorsheynta qaranka shaqaalaha kala duwan agaasimaha guud oo dhammaantoodba runtii ah geesiyaal halkan u taagan inay muxuu ahaayay qaranka u shaqeeyaan kaliya halkan kumaanaan hakan waxa dhanka kale mar kale noo soo gashay wasiir ku-xigeenkii wasaaradda madaxtooyada Somaliland Axmed Xaashi Cabdi oo xilligan loo bedelay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda in aragtiyaan isaga dhankiisa aan wax ka weydiinay isla arintan waxaanu dhankiisa isna si mug leh u soo dhaweeyay isla go'aanka madaxweynaha iyo digreetada ka soo baxday xarunta qasiga madaxtooyada runtii saad ka warqabtaan dawladnimadu waxa weeyaan waa meerto maalinba nin meel baa jooga marka horta marka ugu horeysa waan hambalyeynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo runtii waa mas'uuliyadda qaranku isaga saaran tahay hawlaha qarankana isaga hadba meeshii baahidu taala ama hadba meeshii culays saaran yahay isaga yaqaana iyo intuu u magacaabayo markii aan isla aragnay waxaan gartay inay maanta loo baahan yahay inaan ka howlgalo wasaaradda maaliyadda saas awgeed buu madaxweynuhu ugu magacaabay waa ku mahadsan yahay anaguna waan kaga aqbalay waan ku faraxsanahay inaan noqdo wasiir ku-xigeenka wasaaradda digreetadani oo inta badan si weyn aan saameyn ugu yeelan wasaaradda shacbigu si weyn xamuun ugu qabeen in madaxda ugu sareysa dhankooda xilligan ay saameyn ku yeelato ayaanay suuragelin oo Faysal Maxamed Aadan Faysal TV-ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa.